Somaliland sakalogu tagayo nabada haligina siyo no society nabada haligina siyo no society nabada Somaliland sakalogu tagayo nabada haligina siyo no society nabada haligina siyo no society nabada daawadayaal ku soo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamijkeenii ee toddobaadkii hore aad qaybtii hore daawateen ee uu martida inoogu ahaa maxamed sheekh maxamuud oo runtii ka mid ah aan mar labaad idin xasuusiye bahda naafada isla markaasina ah wiil reer Hargeysa ah wuxuu maxamed naafanimo runtii uu ku sugnaa muddo 22 sanadooda oo runtii oo qaybtii hore intiini daawanaysay aad ka soo bogateen qaybta dambana aynu runtii ku qaadan doono maraaxilkii farxadda iyo naxdinta murugada iyo runtii rajada balaha uu soo maray maxamed waxa uu qoray buugaasi toddobaadkii hore aanu idiin soo sheegnay haddaan idinku celinaa ama idin xasuusinana ah maan dooran buugaasi maan dooran oo sheekooyin fara badan oo isaga iyo bahda naafadaba runtii khuseeya ay ku qoran yihiin isla markaasina runtii waqti badan geliyay inuu soo ururiyo dhacdooyinkii nolosha intii uu naafada ahaa duruufihii runtii ku xirnaa way aragnimadii uu ka dhaxlay xanuunkaasi naafada maraaxilkii kala duwanaa dhanka caafimaadka hadday qalliino noqoto iyo haddii ay noqoto runtii nolol kale oo runtii adag oo kala soo kulmayba uu qaybta labaadna uu inala wadaagi doono maxamed waan kugu soo dhaweynayaa mar labaad qaybteena labaad daawadayaal daawasho wanaagsan waad mahadsantahay nimco waxaan idinku mahadnaqayaa aan mar labaad idinla duubo barnaamijkii waxaan aad ugu mahadnaqayaa bulshada iyo bahweynta alxamdulilaah waana ku faraxsanahay inaan waqtigan iyo ka badan baan idin qaato aad baad ugu mahadsantihiin goormaad farxadda ii heshay in badan waxaan ku arkay adigoo aad u faraxsan sanado badan adigoo faraxsan adigoo isbitaalkan kugu soo booqday adiga oo dadka maaragtay u aqal celinaya xanuunsanaya oo wacdinaya adigoo aroosyada jooga adigoo faraxsan adigoo heesaha iyo musiga ka qayb qaadanaya waan ku arkay goormaad farxaddaasi aad heshay والله ولا أرتا نفط إذا قفبا إنما إسكيتستي إن تيجور يسمر كان نافذها إلى وذاك النورشة أنا نصلحين قفبا نورش كل وذاك ده إنما نورش بصدرتين لأن مهرد بهستي لأن مركز قاد كسر كعان صومر كمهرد ده سمعانا كعبد شيء إنما بنيرو ده مركز داير بهيد لأن بحس كده يشتين يلاحظ شون dadna caanay dhibtaa dadna caana marka cabaadan shay dhibtaa si ay shadabnayna tiban ayaa horta iga hadlisay dadna xiriir bay ayaana dhaxmaray oo qofkii ugu horeeyay marka naafobay run ahaantii inantaas noloshada in badan qayb ku leh iyada ay dhistay balwadi jaadkeeda iga joojisay dharkii stoorkan ka xidhan iyada iga joojisay oo igu tiri aan ku imaado dharka ku meelme wallahi meedha xaragada ay bartay xadarada ay bartay nacam noloshada ma gudi karaabalkeeda in badan baan u duceeyay iyo reerkeeda iyo waqtigeeda waxay awood saartay inay markaa iga soo saarto muurkan ku jiray markaa waxa dhacday inantaasaan horta noloshada in badan wax ka bedeshay
ii sheegtay inaan qof bini'aadan ahay ii sheegtay in la jeclaan karo ii sheegtay in nolol layla wadaagi karo anoo israadinaya iskaga tustay jaadkiiga joojisay ma garan karo qofka qof la caqli inuu malaha u jiro waa inanta igu tiri bay ahayd maxamed walaal maan mustaqbal iga damacsanayn markaasaan kuru waay nabad walaal weligay ismaan lahayn qof baa su-aashaa ku oran doona markaasaan kuru walaal waan kaa damacsanay walaal bay igu tiri wadayn dhibaataysanay dee ay axbado kugu dhaceen naafadaay ilaa aduu ma xamaalaan sidee maana kula qurux badna inaad wax barato horta luuqadda ingiriisiga inantaasaa igu dartay oo alimra meeshaa ii gaarsay nacam tacab badan baa iga galay oo iyadu ay gelisay inantaas way qariyaan dadka qofka bini'aadankaa laakiin anuu ma qarin karayo maaha qofaan iyada kama haysan karayo nacam hadh iyo habeen waan qirayaa waan sheegayaa qofkaasaa kalsoonida ka qayb qaadatay way jiraan dee waqtigaa dhallinyaraan ayno dee qaar fara badan baana soo dhex galay oo damcay markaa in ay na kala kaxeeyaan dabeedna meel bay soo keentay gebiga asxaabteedii intii na kala kaxaynaysay waxay ku tiri maxamed hadduu curyaan yahay iyo hadduu gacmalaa yahay anaa jecel idinka waxba idinkama gelin idinku naftiin aad mas-uul ka tihiin yeelaa idinku inta waxay idinka saaran yihiin waa maalintan kalsoonida ugu weyn naftayda waa sheegahay marka kalsoonidan helay qofkaasaa mas-uul u ahay maxamedow runtii nolol maraaxil kala duwan baad ka soo sheekaysay xaggii farxaddaynu iminka maraynaa maxamedow weli jacayl ma kugu dhacay waaw wardag waa igama dhammaadaba anaa warkay xumadda nimooy sometimes baan islaa nimala warkii jacaylkaabato iminka haddii stoorkayga la furo maxaa lambar walba yaalla lambar yaroo akhtaragoyolaas any size of love u yaallaa walaal alxamdulilah walaal noloshaas nimcooyinka waxaa ka mid ah in aan ku guulaysto oo igu dhacaa qofkan sheekaysan ku dhacaa keligay uma dhaco amna allaan laakiin niyo waxyaabo badan baa nolosha sometimes ba marka qaar ba waxay ku soo baxdaa traumada naafanimada oo inaan noqdo qof bilaa dulqaad oo inaan noqdo qof carab badan oo horta jacaylku de isaga laftarkiisaaba naafa isaga laftarkiisa naafa marka waxay soo maray marxalad adago marxalad fara badan baa soo maray may dadkan dee inan walba hal qof baan la wadaagaa dhowr sano dabeedna meel dhexun buu gaarigu nagula dhacaa laakiin waad rajaynaysaa maruun in maaragtay gaarigu badbaadi doono very beautiful insha allah imika qalin baan gelaya haddii ilaahay qadaro lug baa laga yaabaa in la jiro haddii ilaahay qadaro imika aan diyaar garaynayaa marka stageka imika jacayl waan ka xidhan yaro xidho hay biqin marxalka adag baan ka soo baxay marka imika xorriyaddii iyo jacaylkiiba waan yaro xidhayo marka qalliinkaasaan imika isku diyaarinayaa goormaad is leedahay aad qalliinka gashidoo tagtid hore waan galay oo far baa lay jaray oo waa lugtaas weeye oo lugtaa idna waxaa laga yaabaa ilaa xaggaa in la gooyo haddii ilaahay qadaro anoo faraxsan baan nimco gelayaa ay baqandee ilaahay ku siyaadee nimcada iimaanka ilaahay ku anoo wallaahi faraxsan baan gelayaa oo labadii ragcadood ugu dambeeyey kusii tukaday weliba anoo labada lugood qabaa anoo ku qanacsan baan gelayaa anoo faraxsan waan ka soo baxaya hadday taydii noqotona anoo faraxsan baan sheegay oo ilaahay xusayaa baxwalaal culays maaha wax weyn maaha wuxuu ilaahay kugu talagalay uu kugu talagalay kuma seegayaan ka dayrin abidka nolosha la deriska tahay ha u dudubnitu deeshaa waxaan in badan ku faraxsanahay nimcoy walaalo nacam qofkaas inantaan ka sheekaynaya waa inantii nolosheeda dhistay weyn xaafadaydu waxay awood u saareen inay anigay kala ilaaliyaan oo daasad bay noqdeen daasadii soo riyo maxaa loo marka ay markays nugaan daasad baa loogeeyay daasadda xaafadayda ahayd dabeedna waxay soo maray marxal habeenka iyo maalintu ay isku kalar yihiin farxadda iyo murugada jecelahay oo marka waqti badan waan soo qaatay qaybta farxadda ay doonay gudubno waxaan kaaga warramayaa markii dambe aan ishelay waan israadinay markii hore waan ishelay waxaan ishelay qofkaan ahay waxaan ishelay waxaan geli karo iyo waxaan gudi karo
maxamed in badan ayuu ka soo sheekeeyey maraaxilkii kala duwanaa ee macaanka iyo qadhaadhkaba lahaa runtii oo uu soo qaatay noloshiisa. wuxuu ka sheekeeyey duruufo badan oo nolosha ku xeeran. waxa uu ka sheekeeyey waayo aragnimo uu ka dhaxlay nolosha muddada 22 sannadood ahayd ee uu naafada ahaa maxamed. maxamed waxaynu odhan karnaa runtii waa aayad wax ku qaadasho mudan runtii, yacnahii samirka iyo iimaanka maaragtay ku jira ee uu muujiyey uu hadal oo dhan ku soo gebagabeeyey samir iyo salaad. ilaahay subxaana wa tacaala ayuu yidhi kaashada waad arkaysaan inuu dhowaan qalliin gelayo, inuu ku faraxsan yahay inuu qalliinka galo isagoo faraxsan. insha allah biidnillah inaguna waxaynu u rajaynaynaa inuu isagoo caafimaad qaba oo faraxsan inuu ka soo baxo. maxamedow ilaahidamkiisa walaalo waanu rajaynaynaa. runtii waxaa jira dad fara badan oo iyagu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u dhammaystiray laxaadkoogii oo dhan, caafimaad qaba, ordaya, tashanaya, runtii ilaahay mooyaan aanay cid kale u baahnayn, haddana at the sometimes ama waqtiyada qaarkood dareema oo ka odhanaya borin baa nahaya ama maxaan idhahdaa isku buuq baa ayaa nahaya. runtii maxamed waxaan odhan lahaa ha u noqdo calaamad. isaga oo laxaadkiisiila ayuu haddana isku haysta inaanu waxba aanay ka maqnayn, wax kasta qabsan karo, ku qanacsan qadarka ilaahay. ilaahayna waa kiinayday shar iyo khayrba waxa weeyaan waa qadarka in lagu qancaana waa mid meesha taala. waxaynu rajaynaynaa in qof kasta oo inaga mida oo bulshadeena ka mid yahay in ilaahay subxaana wa tacaala garansiiyo caafimaadka uu haysto, waqtiga uu haysto, inuu waqtigiisa oo ka faa'iideysto. maxamed waxa uu inoo sheegay uu inala wadaagay in waqti fara badan oo murugo iyo xanuun uu ku soo qaatay, in maxaan idhaahdaa haddii uu imika imaamkiisu sida uu taamka u yahay uu markaas uu noqon lahaa inuu wax badan kaga faa'iideysan lahaa. gabagabadii barnaamijkeena ayaynu taagannahay. maxamedow maxaad nala wadaagi lahayd sheekooyinka buugga soo socda ee aad u bixisay maxaan idhaahdaa maandooran? buuggaasi maandooran imise ayaad ururinaysay? hal sheeko waqtiga oo aad inugu ciriiriya haddii aad inoo soo xusho aad u kooban oo aynu kaga tegayno daawadayaasheenna. runtaa walaal nimco buugga waxaa la idhahdaa maandooran baa la idhahaa. waxaan ka qoray buugga anigii sababtay keentay kaaga shekeeyey. dabeedna horta waxaan in badan buugga maandooran baa la idhahdaa. horta qof intuu dukaan galay ka soo qaatay ma jiro. qof kastoo bilaadan haddii laga weydiin lahaa la odhan lahaa nooceenu ku abuurnaa, waxaan isleeyahay mala nebi yuusuf ka yar may dalbadeen. qof kastoo bilaadan wax dalban lahaa yuusuf buu dalban lahaa. waayo markaa dunyada 3 loo qaybiyo 2 ka mid a quruxdiisii la siiyey, ma jirto qof dee adduunka bashar soo maray. waxaan ka sheekaynaya walaal sheeko aan shalay ka sheekeeyey barnaamijkayga daaradayda yaree live-ka. horta live baan soo galaayo facebookga. aniga live horta wax iskaga baranaya Suudaan Cabdixakiin oo xagan ka salaamayo oo deedna waxaan ka sheekaynayaa sheeko ka mid ah wixii ka dambeysay aniga ayaa baran jiray qofka naafada si aan u ogaado marxalka uu marayo iyo moralkiisa. haddii aan heli lahaa intaan imigaan dadka u qabto cidii qabata wax badan baan maanta aan ka faa'iidi lahaa. waxaan ka warramayaa inan dhalinyaro ah oo waqtiga aad u dhalinyaro ahayd ayaa iyadoo dariiqa marsa aynu isbarannay waa 2000 iyo dheeraadkii. gaaraan saarnaa inan extremely pure, inan aad qurux badan baa maasha Allah. dabeedna baaskiil bay saarnay. dabeedna gaarigii aan isday waan ku walaal waxaan jeclahay inay joogsato waan ka degay. markaa waxay soo socotaa markaa waxaan kaga degay xaggee u socotay. dabeedna arkaysan gaari ka dhaadhacay. dabeedna inantii baan u istaagay. inantii baan ku walaal mas oran kartaa gaariga adan kaaga dhaadhacay cidcida kulul waa inan baaskiil bay saaran tahay. marka qaar ban ilaahay wax bariyaa inuu ilaahay haweenoo dhan oo caafimaadkooda siiyo, way ma qaadi karaan inta dhibaataysan ilaahay iimaan ay ku qaadan siiyo. dabeedna inantii baa u tiri wallaahi ku ciyaar markaasan ku wallaahi adan gaariga kaaga dhaadhacay inaan kula wadaago waqti. dabeedna cidcid baan la sii maray ilaa waxaan la suluugay dhakhtarka. markaa dhakhtarka inantii ku jirtay. inantii waan isbarannay
dabeedna markaan isbarannay waan waraystay waxay iga warrantay dhacdo mar kastoo naftaydaan xasuusto aan beddelmo waa dhacdada qudha ee dareenkayga beddesha markaan ka warramayo inanta ubax baa la odhanayey inantunan aad u qurux badan baydoo quruxda laftarkeeda dee aayaadka itixaan ka mid ah iyo daabuurta ilaahay quruxda iyo naalaxaadka falxun intaba ilahay baa daawara magaranaysaa dadna ubax qolkeedii waan tagnay qolkeedii dhakhtarka igu soo dhaweysay ubax waan waraystay markaa iyo waran baan ku walaalo ubax kumay dhalan naafannimada laakiin habeen bay seexatay way soo toostay dabeedna daraankii intaa xundhurta ka hooseysaaba uu ka tegey saxarada kaadu way ka socdaan ubax waxaa u dheer intaa dhibaatadaa ku dhacday waxa u dheer hooyadeed way dhimato ubax hooye ma laha waa rajo aabbaheed ayaa ila noosha oo bakale aabbaheed iyo carruurtoodii dabeedna aabbaheed bay ku tiri aabba maxaa helay aabbaheed bay ku tiri aabba de magaan garan wax ku helay adoo caadiyaad saacata maxaa ku helay aabbaheed bay ku tiri mana kici karo saxaraankan maamulaya ma jirto dabeedna hooyadu qofka bilaadankaa inanta dumarku la mid maaha ragga hooyadu wax badan bay ka caawin lahayd hadday la joogto ama ay habla heli lahayd ubax dabeedna way la tacaaleen dabeedna aduu sidii baa xudhaceen ubax waxay joogtaa marka xamar bay joogtaa xaafaddii deganayd ayuu dagaal ka dhacay xaafaddii markuu dagaal ka dhacay dagaalka wuxuu noqday dagaal muddo soconaya waxaa dhacday ubax aabbaheed oo in badan dee muddo ay wada noolaayeen ayaa u yimiday dabeedna waxay aragtay inuu aabbaheed goostay inuu ka tago aabbaheed oo alaabtay xidhan aragtay markaas ku tiri aabbo aniga makaariyoon adigu qaaday umuu jawaabin alaabtiisu soo xidhay jirkaan biyaaba soo qaado soo duuldhigay wuxuu ku ubax aabbo dagaalku wuu dheeraanayaa laba mid bay noqonaysaa madaafiic baa bilaabmay adiga inaan dee adiga iyo toddobadaas si aynu meel ku wada dhimanno iyo inaan toddobadan badbaadiyo oon adiga ilaahay kaaga tago waxay aragtay inuu aabbaheed goostay inuu ka dhaqaaqo dabeedna waxay ku tiri aabbo ma waxaad goosatay inaad iga tagto iska tag bay ku tiri aabbo aniga ilaahay baan dayacayna iska bax uu kaga tegay aabbaheed wax waa inaan saxaradii kaadu ka socdaan marxal kala jiro dumarku ay maraan ubax iyadoo nool buu darxi galay biyaha shubatada kurka ma soo qaadi karto darxigii hoosta ka galay wuxuu gaadhay inuu jirkeedaas soo dulmaro gacmuhu ma shaqaynaya ilaaha raxmaankaabaa waxa uu leeyahay waxaad u haysataa inuu shar idin leeyahay oo khayr idin laa jira iyo waxaad u haysataa inuu khayr idin leeyahay oo shar idin leeyahay madfac baa wax ku soo dhacay gurigii ay ku jirtay ayuu dacalka ka dhacay gidaarkiiba ku dumay lug ayadu wax ka jabtay dadkii dariiqa marayay magaalada xamar ayaa u istaagay dabeedna kaaryoon ay ku qaadeen waa la qaxiyey dabeedna dumarkii meesha marayay ayaa ilaahay naxariisu geliyo dharkii ka bedelay darxigii wixii ka maydhay hagaajiyey oo nafteedii dhammaystiray dabeedna sidii bay wax u dhaceen dabeedna ubax bay ku dhaheen xaggeenu ku geynaa waxay ku tiri dee kii dhalay way iga tegeen igee bay ku tiri dee dhakhtarkaan ku dhignayda iga daaya bay ku tiri beru dagaal ka dhacayo dee lagaga qaxayaa iga daaya maxaanu kuu qabannaa ilaahay wuxuu ka dhawaajiyey markay dee xaafadee dadka yidhaaheen kuma qaadi karno ayuu ilaahay wuxuu ka dhawaajiyey haddaba xaggan igeey bay ku tiragaysaa somalilan igeeya de markaan somalilan uma aqoonsanayna laakiin hargeysa igeeya bay tiri diyaaraddaa la soo saaray airboodka laga soo dejiyey ubax waxay codsatay markay airbood ka soo degtay inamadii immigrationka guriga waraqaaga keen waxay ku tiri wax waraaqoon sitaa ma jirto waxaan ahay qof sidaasa ilaahay dartii dhakhtarka igeeya meel aad igu celisaan ma jirto intaa igu caawiya dhallinyaradii way soo qaadeen ubax dhakhtarkaa la keenay ubax waa inan ay saxaradii kaaduba ka socdaan sariirta la garab dhigaaba waxay tahay iga garab raraan waa iska raraan labada sariirood dhibaatada inantaa ka socota iyo saxaradaas ubax markii dambe sida marba loo rariyey marba qol iskaga rarasay
waxaa la siiyey qol yaroo isolatorka la yidhaha qolka yaree gaarka ee dadka karantiimadaa la geeyo ayaa loo raray ubax cid ma laha ehel ma laha cunnada waxay cuntaa cambada dadkayna reebaan ayay cuntaa dadkeedaas iskaga dhex noosha way adag tahay in qof bilaadan la gala dabeedna ubax markii dambe qolkii markii la geeyey sariirtii baa waxa la saaray sariiraan soo toosiyaa la saaray ubax waxay codsatay in tashti loo soo iibiyo dabeedna dumarkii bay ku tiri tashtii keena waa loo keenay dhabtay saaray tiri dabeedna waxay maydhatay dharkeedii bay maydhatay iyo go'yaasheedii dadkii dhakhtarka waxay u soo ururiyeen lacag waxaa loo soo iibiyey go'yaal iyo dhar baa loo soo iibiyey ayaa la soo duldhigay ubax step by step bay maalinba si yar nolosheedii u soo noqonaysay markii dambe hablaha asxaabay ubax yeelatay oo wakhtigoodaba iyagu geliya ubax dadkeena waa dadaad u naxariis badan oo dad jecel qofka bilaadanka inay wakhti la qaataan dabeedna waxay gaadhay in ay iyagu wax walba ay u qabtaan oo ay bombaro xidhaan ay ka bedelaan ubax lacag ay ku soo iibsato ma haysto waxay cuntaa waa raashinka dhakhtarka lagu kariyo ayay cuntaa waxaa dhacday ubax habeenkii dambe markii dambe way guurguuratay baaskiil baa loo keenay baaskiilkii marka loo keenay waanagan iyadoo dariiqa malasaans barannay noloshayda maan arag qof bil'aadana oo inantaa ka qalbi wanaagsan noloshayda maan arag inantaa qof ka rajo wacan ubax aniga oo iyada wakhti gelinaya ay isku dayaysay in anigay caqli celiso oolans maxamed waxaan ilaahay baa keenay qofna muu dooran maxamed samir dabad waxaan is arki jiray say igu sheekaynayso anoo bedelmay oo mararka qaar aan ilmadaba maamuli karayn oo markaasi taa maxamed dabadna wakhti badan baan geliyay waxaan la qaadanay maalin dambe ubax UNICEF bay tagtay farxaan faako good ayaan ugu tegey farxaan baan u sheegay oo ka mid ah dhalinyaradii wakhtigaa dee markaan naafadaan ka soo baxay ayuu in badan waxbaro igu odhan jiray oo i dhiirigelin jiray oo isagii ninka lamunilabasta ilahay raallah ka hado dad aad wanaagsanaa ayaa in badan noloshayda kalsoonida iyo farxaddan hayo nimankaasaa mas-uulka ahaa nacam whatever waxay gu dhahay maxamed haddaad baraanso mushaharkaad u baahataan kuu qoran axbaro in aan aqoon barto iyaga ayaa awood saari jiray dabeedna waan ugu tegey markaan ku sii socday waxay la socday dad naafa ah waxay gu dhahan maxamed naagtan waxaa kaa galay eed ugu tegaysaa annaga ayay waxay naga qabiyayiin anaga hawsheeda ka dhammee waxaa igu adkaatay inaan qaato hadalkii dabeedna markaasaan ku wal maxaad bal iigu yar celi mararka qaar baad soonaysa malaa wasmasiis moogta dabeedna markaas waxay igu celiyeen hadalkii igu celiyeen dabeedna waxaan ku odhiniyo mararka qaar bay jawaabtu adkaanaysaa moogta waan ka amso waan iska dhaqaaqnay oon soo sheegay farxaan wuxuu igu diyaar baan aho wixii soo raaciyay markaa inaan shaqaalihiisa hawshii bay u diyaar garoobeen ubax second day waxa u soo baxay UNICEF bay tagtay waa ilmo yar markaa wakhtigaas oo inan dhalinyaro ah sawiraa laga qaaday dabeedna dhakhtar baa gabar UNICEF joogta u raadisay dhakhtar Maraykan oo dhakhaatiirtan tabarucaaya ayaa ubax yidhi anaga qaabilana tigirkeedii iyagaa soo diray wixii oo dhan soo direen dabeedna maalintii ubax ay ogaadeen qoladii aan soconay inay tegayso ayaa qof waliba wuxuu awood u saaray inuu noqdo qofkii ugu dhawaa ubax dabeedna ubax baan u yeedhan ubax baan ku ubaxa maanta waa lagu jeceli markaasay igu tiri haa waan arkaya waxaan diiday markaa inaan noqdo qof xaasido waxay soo martay xasuusiya waxaan ku ubax qofkii ku xumeeyey iyo qofkii ku wanaajiyey ilow ilaahay baa kaaga hiiliye waan ku qasbanay bay tiri maxamed anna baan ku idhi dad daqada ka baxdo meesha ka baxdo ha isku dayin dib isoo raadiso markan intaa ku idhi ayay ilmaysay waayo bay ku tiri maxamed maxaad saa ilaada waxaan ku idhi ubax anigu meel baan kula doonayey meeshii aan kula doonayey waad gaadhay maanta adaa iga rajo wanaagsan aniga adu maanta Maraykan baad ku socotaa laakiin anu meel uma socdo waxaan laakiin ku faraxsanahay inaan dad fara badan oo kale wakhtiga la qaadan doono naafa waxa ay iga qaadatay 2 saacadood inaan aamusiyo ubax waxay ku tiri maxamed intuu aabbahay aan ka waayey buu ilaahay adigay kaa geliyay bay tiri run baan kuu sheegaya bay tiri ilaahay baa ii kaa adoonsadaa ii kaa amray bay tiri
nacam qof yaqiin laba heedo ilaahay in badan taqaanaa dabadna ubax maanta Mareykan bay joogtaa teleefankii ay igala soo hadlaysay waan bedelay oo 2000 telefoon ba ka dambeeyay buugan waxa uu ka kooban yahay 2000 oo sheeko oo ay tani ka mid tahay ay ubax ka mid tahay ubax waxaan jecelahay haddii ay maanta ay maqlaso ama ay meel ay joogto ay garanayso markii sii dhoofisay hal qodob baan ka wada hadalnay halka qodob aan ka wada hadalnay waxa inay abeed cafiso waayo isaga laftarkiisa xorriyadda ka tagtay hadduu awood u leeyahay uu qaadi lahaa laakiin wax ka miisaan badan ayaa soo food saaray marka dhalinyarada annaga naafada waxaa noogu naxariis badan waa haweenka weyn hooyada ka mida marka waxaan in badan leeyahay in badan aad aan ku dardaarayaa dhibta iyo dheeftaba ilaahay baa hayaa ku samra waxa ilaahay keena buuganna haddaad sii codsataan waxaan ku soo bandhiganaa ama guuleed ama baalkii buugga maandooran baa lahaa 4 saacadood 5 saacadood soconaya oo aad buu dheer yahay waxa weeye waa documentary aad u fara badan weey marka oo qaraariye macaan bas ku jira aad baan nimco adiga iyo inankeelada dihnaya maxamed aan aad baan ugu mahadnaqayaa bahda TV-ga iyo saxaafadda iyo aad baan ugu iyagana ugu mahad celinayaa ilaahayna waxaan baryaa inuu xaq aynu ku sugo intan iyo in ka badanna waynu wada geli doonaa haddii ilaahay noo saamaxo dhammaantiin wad salaamantiin waxaan aad u jecelahay salaamo bulshada iyo shacabka iyo madaxweynahooda iyo xisbiga aan ka tirsanaya mucaaradka iyagana aad baan u salaamayaa ama waddanka aad u salaamayaa aad baan idinku mahad celinayaa thank you daawadayaal waxaanu intaasi ku soo afmeeraynaa barnaamijkii aadka u dheeraa runtii ee qiirada lahaa ee farxadda lahaa ee runtii u baahnaa amaba ahaa inaynu wax ka baranno inteena runtii ilaahay caafimaadkiiga u dhameeyay ilaahay uu xubnahooga u dhameeyay ama lixdooda laxaad sida hadba qofba uu yaqaano u dhameeyay inaynu casharo badan ka baranay maxamed maraaxilkii kala duwanaa ee uu soo maray muddadaasi sidoo kale inay wax ka bartaan bahdiisa naafada runtii la nool xanuunada naafada kala duwan meelo badan oo xubnaha ka naafada ah aynu iyaguna rajaynaynaa daawadayaal barnaamijyo kale oo runtii ku saabsan naafadana waanu idiin soo gudbin doonaa aad iyo aad baanu idinka mahad celinaynaa sida aad barnaamijka ula socoteen waqtiga aadna siiseen runtii aad ku dhuganayseen barnaamijkeena aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin oo idinka mahad celinaynaa maxamed sheekh maxamuud aad iyo aad ayaanu kaaga mahad celinaynaa waxaan ku leenahay maadaama oo aad safar runtii aad dhawaan geli doonto maadaama oo aad dhawaan qalliin geli doontid waxaanu ilaahay kaaga baryaynaa in uu caafimaad kaa siiyo kuna fududeeyo maxaan idhahdaa qalliinka aad gelayso adiga iyo inta kale ee xanuunsanaysa runtii aan waqtiga u saamixin inay runtii caafimaad ku naaloodaan waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay caafimaad sareecana uu siiyo aad iyo aadna waanu kaaga mahad celinaa aad baad u mahadsantahay walaal aad baad u mahadsantahay walaalo daawadayaal waxaanu idinkaga tegaynaa dhammaantayo dhammaantiin sidaas iyo nabad gelyo Sociedade nabada
nolosha oo